kulan lagu gurfaynayay xal u helidda shaqo la'aanta dhalinyarada dalka ayaa lagu qabtay xarunta dalada dhalinyarada Soonyo. Kulankan oo iska kaashadeen dalada Soonyo iyo hay'adda Save the Children ayaa waxaa kasoo qayb galay in ka badan 100 dhalinyaro oo su'aalo kala duwan ku weydiiyay mas'uuliyiinta kala socday laamaha dawladda, shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo ururada bulshada. Waxaan furitaankii kulankan ka hadlay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen agaasimaha Soonyo, hay'adda Save the Children, wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta, agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga, wasaaradda shaqada iyo mas'uuliyiin kale. Kulankan waa kulan lagu lafagurayo arrimaha la tacaluqa shaqo la'aanta iyo shaqo abuurka iyo aragtiyaha ku wajahan. waxaana kulankan soo wada agaasimay dalada Soonyo oo runtii ay maalgelisay kana caawinayso hay'adda caalamiga ah ee Save the Children International oo aan uga mahad celinayno runtii maalgelintaas. kulanka waxaan ku dhaafi doonaa inay ka doodaan dhalinyarta iyo mas'uuliyiinta wasaaradda ay private sector ay joogaan, wasaaradihii dawladda ay joogaan, farsamada gacanta iyo jaamacadaha iyo dowladda kule. runtii waxaa sectorkan dowladda ku bilaaran yahay caqabadiisuna inay badan tahay laakiin qolba ay door ku leedahay. marka waxaan dirjeena insha Allah in wax badan kusoo bixi doono. qorshaha horumarinta qarankani leeyahay dhalinyarada mudnaan iyo muhiimad gaar ah ayuu runtii siinayaa. waxaa dhalinyarada qorshaha horumarinta qaranka ugu jira in loo sameeyo xarumo ama iskuulo lagu barto farsamada gacanta. dal kasta wuxuu leeyahay meel hoyool uu ku mataqaanaa isku dayo inuu gaadho. higsigaas dhalinyarada waxay ka mid noqotay meelaha muhiimsan ee dhalinyarada in loo helo yool uu gaarsiiyo meel loogu talagalay.